Salaamullaahi calaykum daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka dibadiisa iyo gudihiisaba naga soo gaaray. Halka aad warkan kala socotaan waa shabakada wadaagsin. Qodobada ugu xiisaha badan ee aan idiin haynana maanta waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay rag hubaysnaa golaha xukuumadda Puntland oo ansixiyay xeer muhiim ah. Baahinta dalka Guinea ayaa markii ugu horeysay ka hadashay safarkii madaxweynaha Somaliland. Sida aan wararka ku helaynana waxaa xal rasmi ah laga gaaray xiisadii maamul ee ka taagneyd magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dagaal culus oo dhexmaray ciidamada Somaliland iyo jabhadda Korneyl Caare oo aan warbixin buuxda kaga hayno. Daawadayaal intaasi waxay ahaayeen warka madaxdiisii haatanna ku soo dhawaada isagii oo fidsan. Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay rag hubaysnaa oo ka tirsan kooxda Daesh. Warar ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu sheegay in xubnahaasi oo gaaraya labo lagu soo qabtay howlgal gaar ah oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka fuliyeen banaanka Muqdisho. NISA ayaa shaacisay in ragga la soo qabtay ay hubaysnaayeen isla markaana ay damacsanaayeen in ay dilal qorshaysan ka geystaan gudaha Muqdisho. Sidoo kalena warar ka soo baxaya taliska NISA ayaa lagu sheegay in laba qof oo kale oo ka shaqeynaya shirkado ganacsi la soo qabtay kuwaas oo haatan ay ku socdaan baaritaano dheeraad ah. Warkan laguma shaacin magacyada xubnaha gacanta lagu soo dhigay iyo halka lagu soo qabtay marka laga reebo in howlgalku uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliska ayaa kordhiyay howlgallada lagu xaqiijinayo amniga degmooyinka gobolka Banaadir. Madaxweynaha Puntland ayaa shalay oo Khamiis ahayd wuxuu gudoomiyay kulankii toddobaadlaha ahaa ee golaha xukuumadda dowladda Puntland. Kulankan oo ka qabsamay madaxtooyada magaalada caasimadda ee Garowe ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan xubnaha laanta fulinta. Wasiirada ugu horeyn faahfaahin la xiriirta ammaanka dalka dhageystay wasaaradda amniga ayaa bogaadisay warbixintan oo sheegtay in nabadgelyadu ay hagaagsan tahay. Wasaaradda tacliinta oo ku warantay shaacinta natiijada imtixaanka shahaadiga ee Puntland ayaa waxaa madaxweynuhu u hambalyeeyay ardayda oo natiijo wanaagsan shaqaysatay. Golow wuxuu cod aqlabiyad leh ku meelmariyay xeerka maaraynta dhulka magaalooyinka kaasi oo ay diyaarisay wasaaradda gaadiidka iyo guryeynta dowladda Puntland. Ugu dambeynna wasaaradda duulista hawada ayaa shaaca ka qaaday inay isu diyaarinayso soo dhaweynta duulimaadyo caalami ah oo Puntland ka bilaaban doona. Waxaa idin haynaa xog ku saabsan dagaal dhexmaray ciidamada jabhadda oo hogaaminaya Korneyl Caare iyo ciidamada Somaliland. Dagaalkaas oo ahaa mid aan waxba la isku reeban isla markaana ay ciidamada Somaliland soo weerareen fariisimo ay lahaayeen jabhaddaasi oo ku yaala deegaanada Biyo-Guduud iyo Dhoob ee bariga gobolka Sanaag ayaa la soo sheegay inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo labada dhinac soo kala gaaray. Sidii la xaqiijiyay 4 ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ayaa ku dhintay 6 kalena waa ku dhaawacantay. Dagaal culus oo ciidamada Somaliland iyo jabhadda Caare shalay ku dhexmaray deegaanka Dhoob oo qiyaastii 45 dhanka bari kaga beegan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Dagaalkii shalay ayaa bilowday kadib markii cutubyo ka tirsan ciidanka Somaliland oo ka baxay deegaanka Yube ay weerar ku soo qaadeen ciidamo uu hogaaminaya Korneyl Siciid Cawil Caare oo ku socday buuraleyda magaalada Ceergaabo balse xilliga la weeraray uu ku sugnaa deegaankaasi. Dadka dhintay ayaa sidoo kale waxaa la sheegay waxaa ku jiray 3 askari oo ka tirsan ciidamada Somaliland halka meydka hal ruuxna lagu soo helay dhufays ay banaayeen ciidanka jabhadda Caare oo iyagu difaac ku jiray maadaama ciidamada Somaliland weerarka soo qaadeen. Maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa isku haysay deegaan ahaan cidda uu gobolka Sanaag hoos tago waxayna labada dhinac wadaan kala jiidasho dhanka odayaasha iyo waxgaradka deegaanada gobolkaas. Sida aan wararka ku helaynana waxaa xal rasmi ah laga gaaray xiisadii maamul ee ka taagneyd magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kadib dadaallo ay sameeyeen mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabelle ayaa lagu guuleystay in la soo afjaro xiisadaasi. Khilaafkan ayaa ka dhashay xilka qaadis oo madaxweyne Maxamed Cabdi Awaare ku sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kaas oo ka hor yimid tallaabadaas. Dabageed ayaa ka biyadiiday inuu xilka wareejiyo isla markaana uu barneeyo xarunta degmada taas oo sababtay inay xiisadu xoogaysto iyo dagaal ka dhacay deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan. Warar ay warbaahinta wadaagsin ay ka heshay ayaa ku soo waramaya in gudoomiyaha cusub Cali Maxamed Curaale uu shalay la wareegay xafiiska degmada. Arrintan ayaa ka timid kadib wadaadalo muddooyinkii dambe ka socday halkaasi. Sidoo kalena waxaa xalay kulmay gudoomiyaha Caraale iyo Dabageed kuwaas oo isgacan qaaday kuna dhawaaqay in la dhameeyay khilaafkii taagnaa. Warbaahinta dalka Guinea ayaa markii ugu horeysay ka hadashay safarkii madaxweynaha Somaliland uu ku tagay dalka. Shabakada Midig Guinea oo ka mid ah warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in socdaalkii madaxweynaha uu ku tagay dalkaasi ay horseeday in shacabka reer Somaliland si weyn u sharfaan calanka waddanka Guinea iyo madaxweyne Alpha Conde oo sawiradiisa la suray wadooyinka waaweyn ee caasimadda Hargeysa.
waxaa kaloo ay xustay shabakadu in shacabka Somaliland ay si weyn u bogaadiyeen madaxweyne Conde iyo shacabka reer Guinea oo madaxweynahooda si meeqaam sare loogu soo dhaweeyay caasimadda dalka Guinea. Jamhuuriyadda Guinea iyo Somaliland ayaa xiriir cusub yeeshay kadib socdaalkii madaxweyne Biixi, kuwaas oo la filayo inay yeeshaan iskaashiyo kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen war wixii dalka dibadiisa iyo gudihiisaba naga soo gaaray. inta aan warkaan iyo war kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.